Haweeney balaayiin dollar ka dhacday dunida. Haddaba waa kuma haweeneydaas? Bishii Juun sanadkii 2016, haweeney ganacsato ah laguna magacaabo Dr. Ruja ayaa soo istaagtay masraxa Wembley Arena ee magaalada London, waxaana u sacbiyay kumanaan taageerayaal ah oo la dhacsanaa qorshaheeda. Waxa ayna dadweynihii u sacbinayay u sheegtay in barnaamijka OneCoin uu ahaa mid ay dooneyso inuu noqdo barnaamijka ugu weyn ee caalamka lacagta lagu laban laabo, qof kastana lacagtiisa lagu siiyo meel kasta oo uu dunida ka joogo. Bitcoin isna waxa uu ahaa barnaamij lacagaha lagu laban laabo lidna ku ah barnaamijka OneCoin. Waa midka keliya ee la garanayo barnaamijka Bitcoin. Barnaamijka Bitcoin qiimihiisu wuxuu ka soo bilowday lacag aad u yar, kadibna wuxuu gaaray boqolaal dollar sanadkii 2016. Lacagahaas waxaa si toos ah loo siinayay dadka ka qayb qaata barnaamijka. Dr. Ruja waxay dadweynihii dhageysanayeen u sheegtay in barnaamijka OneCoin uu yahay kii looga takhalusi lahaa barnaamijka Bitcoin. Waxay tiri, muddo 2 sano gudahood ah ma jiri doono qof ka hadlaya ama lacag ku shuba doona barnaamijka Bitcoin. Guud ahaan dadka caalamka ku nool waxa ay bilaabeen in ay maalgashtaan ama lacagahooda ku shubtaan barnaamijka OneCoin, iyaga oo rajeynaya in ay qayb ka noqdaan ololaha cusub ee lagu badinayo lacagaha barnaamijka OneCoin. Waraaqado adduunweynaha laga soo xigtay ayaa muujiyay in dadka Britain ku nool ee barnaamijkaas ku darsadeen lacago kor u dhaafaya $30 milyan. Weliba 6 bilood ee ugu horeysay, in ka badan $2 milyan oo lacagtaas ka mid ah waxaa lagu maalgashtay usbuuc gudihiisa. Sidaas ayuu kor ugu sii kacay qiimaha lacagta lagu darsanayay barnaamijka OneCoin. Wadamada ugu badan oo dadkooda barnaamijkaas ay maalgeliyeen waxaa ka mid ahaa Shiinaha, Jarmalka, UK, Hong Kong, Mareykanka. Laakiin waxaa jirtay arrin muhiim ah oo aysan ka warhayn dadka hantidooda ku shubtay barnaamijka OneCoin, taasoo ah sida uu barnaamijka u shaqeynayo iyo qaabka lagu aamini karo. Dr. Ruja waxay soo ururisay dhammaan macluumaadka u ekaysiin kara barnaamijka mid sax ah, laakiin waxaa jiray wax ka qaldan xaggeeda oo aysan ogeyn iyada. Bishii Oktoobar 2016, oo ahayd 4 bilood kadib markii ay ka soo muuqatay Dr. Ruja London, khabiir ku takhasusay lacagaha kaydinta ganacsiga oo lagu magacaabo Bojom ayaa laga soo wacay shirkad shaqaale raadinaysa. Waxaa loo sheegay mushaar badan oo bishii ah $250,000. Waxaan ku fikirayay siday noqon doonto shaqadaydu, ayuu yiri khabiirku. Ninkii isoo wacay wuxuu ii sheegay in ay rabaan qof khabiir ku ah lacagaha. Khabiirkii wuxuu dhahay, waxaad ii sheegtay in ay shirkaddu tahay mid looga ganacsado kaydinta lacagaha. Sidee ku dhacday inaadan lahayn khabiir? Ninkii wakiilka ahaa oo soo wacay ayaa u sheegay in ay tahay markii ugu horeysay ee khabiir raadinayaan. Ninkii khabiirka ahaa waxa uu yiri, shirkadda magaceed? Wakiilkii oo ku jawaabayo ayaa waxa uu yiri, shirkadda waxaa la dhahaa OneCoin. Shaqadii ma uusan qaadanin, sidaas ayuu ku dhaafay asigana. Riyada taajirnimada ee Jack Mandam. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Jack Mandam, qof ay saaxiibo ahaayeen, ka heshay fariin loogu sheegayo shirkadda cusub ee fursadda weyn ee ka jirto. Isla markiiba wuxuu eegay bogga ay ku leeyihiin internetka. Muddo saacad ah ayay dhageysanayeen macluumaadka ku jira halkaas. Waxaa loo sharxay fursad taajirnimo ah oo ku jirtay barnaamijkaas. Waxay go'aansatay inay ku maalgashato lacag dhan $1,000. Hal isbuuc kadib, Mandam waxa ay go'aansatay in ay ku shubato lacag lagu noqonayo taajir. 5,000 ayay ku shubatay sida ku xusneyd macluumaadka barnaamijka. Wax yar kadib waxay ku shubatay $10,000. Markii dambena waxay saaxiibadeed iyo qoyskeeda ka soo ururisay $250,000. Waxa ay bilowday in ay qorsheyso safarro badan oo meelo badan ay ku aadaysay, maadaama ay sugaysay lacag aad u badan. Muddo kadib, sanadka dhammaadkiisii, waxaa loo sheegay in lacagtii oo dhan meeshaas ay ku gubatay. Musiibada dalka Uganda. Gobol ku yaalo dalka Uganda oo aan sidaas uga fogeyn xadka Rwanda. Inta badan dadka ku nool waa beeraley abuurata mooska, digirta, macmacaanka, bataatiga.
iyagoo ka raadinaya nolol maalmoodkooda. Sanadkii 2016, Daniel Oney Wanda wuxuu isku duway 700 oo kun oo shilinka Uganda ah, taas oo u dhiganta $250, isagoo doonayay inuu ku maalgashto barnaamijka OneCoin. Daniel waxa uu ka mid ahaa kumanaanka reer Uganda oo ku waayay lacagahooda barnaamijka OneCoin. Victoria Saruja weli waxay ku safraysay caalamka si ay u fidiso barnaamijkeeda OneCoin. Laakiin 2017, Victoria Saruja mar qura ayaa la waayay. Dad badan ayaa isku dayay in ay xasuustaan meesha ay jirto, laakiin meel waa lagu sheegi waayay ugu dambeyn. La soco barnaamijyo kale oo xiiso leh. Mar walba nagu xirnaada si aad nooga heshiin barnaamijyo xiiso leh.